أبو بكر سودو مرلبات حوش ميديو سودو بالكون سنة كعصب سنة كهور سوقو أها horta aad bay u dhowahay sanadkii hadda naga dhaafayana horta intiraaf buu noo dhaaf intiraaf baanu helnay alxamdulilah rabbil caalamiin kalna waa kii aan caalamka lala macaamilayna oo de wax soo saar iyo maalgashi aanu helaynay intiraafna waanu haysanaa caawa farxaddu waxa weeyaan sanad intiraaf la keenay iyo mid soo dhaweeyay intiraafka maxaa kuu diyaarsanay sanadka cusub kusoo dhaweynaysaa أنا waxaan soo dhaweynayaa horta barwaaqo kowdhe kow bashbash iyo barwaaqo laba ummadeena oo iswada cafisa inagoo wax qabsana waxaas oo baan soo dhaweynaya iyo hidda dhowr oo lagu caawiyo qabiis kasta hidda dhowr stresska ka saaraysa no frustration markaad isku booqdo waa la soo booqdaa kursigaas la fariistaa qaaciga la iska fariistaa waa waxa weeye frustration ma jiro no stress marka hal la ogaado qabiistii halkan iyo jimcaha la wada habeen caawa horta waaba habeen ay ka duwan tahay habeenada kale marka aad baan ku salaamaya adigana mahadsanid sanad wanaagsan kusoo dhawo xoosh media bal maanta waxaan ku suganahay hidda dhowr ka war shacabtaada maadaama sanadkii hore sii soo bootinaysid sanad cusubna aad leedahay soo dhawo rajooyinkaaga sanadka cusub rajooyinka sanadka cusub horta way aad u badan yihiin TV-gana oo kusoo dhawahay hidda dhowr numar baan dhex joogaa anigoo shaqaalaha meeshan ka mid ahay sanadka hore waxaan leenahay sagootin wacan sanadka dambena waxaan leenahay ilaahay khayrkiisa iyo baraarihiisa uu nasiyo ilaahay naga yeelo insha Allah dawlad ictiraaf heshay oo imika adduunkii oo ictiraafin waynu joognaa ictiraafkana way soo dhaweynaynaa sanadka horena way sagootiyeynaa maxaa kuuqa haddaad istiraahada maanta cambo hal shay bad sanadkii lasoo dhaafay 2025 aad oran kartaa guusha maanta waan taagana maxay noqon kartaa guusha ugu weyneed ee ay taaganahay anu taa ay Soomaaliland heshay bay noqon kartaa ictiraafkiya oo guul ka weyn taas ma jirto waana guushii ugu weyneed ee Soomaaliland gaadho guushii Soomaaliland gaadho anna waan gaadhay ummaduna way la gaadhay marka waxa leedahay dhammaan shacabka reer Soomaaliland sanadkii 2025 la soo dhaafay guusha ugu weyn qof kasta oo haysto waa ictiraafkii waa ictiraafkii qofkii wax kala haysta qofka noloshiisu way badan tahay waxyaabo badan oo ay khaasan haystaa way jiraan laakiin guusha ugu weyn haysanaa waa ictiraafka mahadsanid sanad wanaagsan sanad wanaagsan aad soo kala walaal mahadsanid fanaan soo dhawo xash media bal ka waran maanta sanad cusub baad soo dhaweynaysaa ka waran dareenkaaga iyo maxaad ku soo dhaweynaysid horta runtii waxaan mahad celinayaa ilaahay oo lagu samay inaan caawa joogno sanadka cusbaa ee lagu keenay helaatan wallahi farxad gaar ay tahay ilaahay lagu xamdinaqaya xaashimiina ku dhawahay waxaan rajaynayaa dhammaan bulshada ku dhaqan caalamka iyo kuwa ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo gaar ahaan jamhuuriyadda barakeysan ee ictiraafka qaadatay in farxad iyo bashbash barwaaqo sanadka kusoo dhaweeya marajinaya adiga maxaa ku qorshaysan sanadka cusub wallahi qorshayaashu qaarna waa xagga ilaahay ka baagan qaarna waa meel qalbigayga ku jira ku ducaysan labadaba inuu alla rabitaankiisa isku darsado aad iyo aad ma nooga sheeg wallahi ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanad bashbash barwaaqa inkastoo ay jiraan waxyaalo fara badan oo shakhsiyan khaas ah oo kamid ah hadda sanadkan caawa aan sii sagootinayno qorshayaashiisa u dambeeyay oo rajaynayo kan caawa bilanaya inaan la jaan qaado fara badan yihiin كل يلا بيست أفر كام أفر مرة في كرهتها تقول شيء. سند ونايس بانكلا يعني قلنا. سلوك لا. هاد سند. ثاني يرى سودو هذا أبو هراي سند عصوب سودو هذا حوش ميديا. وحنكسو قلنا هيدا الدور. أو نكسو وتلنا سند في هراي سند كعصوبنا نكسو دويني نو. على أبو هراي عندك أبو هراي سند كان حوك عقد وين سند ضدك هراي. سند كعصوب وحنقولهم بلينا يا دمان. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waan leeyahay sanad cusub oo wanaagsan saaxiibadeeda garbahayga taagana si gaar ah ugu hambalyeynaya adigoo walaasheexna ku hambalyeynaya iyo channelkaagaba waxaan leeyahay ilaahay sanadkan ay nooga dhigo sanad bashbash iyo barwaaqa qof walba riyooyinkiisu ay u rumoobaan insha Allah horta ugu horreyn xoosh media waan ku dhaway sanad wacan wanaagsan baan adiga laftirkaaga ku leeyahay dhammaanteedna waan noo hambalyeynaya sanadkan insha Allah 2026
noqon doonaa sanad wax fiican ka bedelay nolosheeda ayuu noqon doonaa 2025 way ka nimi caawa nagu dambaysa Soomaa insha Allah 26 caawa waxaan rajaynayaa inuu guulo badan ka gaadho insha Allah hadafyo badan oo niyadeeda ka wareegayna inuu ii rumoobaan hadduu Allah wada leeyahay Allah maatiin noo hambalyeynaya sanad waxaan wanaagsan حوش ميريان aad baan ugu dhawahay waxaan leeyahay happy new year sanadka sanadkiisa ilaahay bashbashiyo barwaaqaha uu gaarsiiyo hadal badan haama buuxso intii kala asxaabtada aad ka tiri laakiin hal mid baan oranayaan علي سكين وان دحليا وان هيسياي سنة ولي بهوديو هولي دباتيو وعهدي مليحي والله قاهرايو سدبكو حسوستا والله قاهرايو هدولكو حسوستا إنو هاقاقي نقولها وياهي إنو هاقاقي نقولها وياهي يس صاحبك سكري سودو horta xoosh media aad baan ugu dhawahay Ali Cabdiraxmaan iyo TikTok radii baa wax weey garabkayga jooga adigana walaashay aad baan ku salaamaya asxaabtadana sidoo kale aad baan u salaamaya waa gabadhii koobaad ee 2026 in wareysanaysa qalmar saxabkan u gelin inta ka soo kaadi Raxmaan ku idmaayo anigu dhalinyarada aad baan ugu duceeyaa dhalinyaro ilaahay waxa weey sanadkan habiyada aad leedihiin oo dhan ilaahay haydin rumay idinkuna aamiinta u raaciyo hadda doonta qalbigaba ka dhaha okay dhalinyarada waxa la ilaahay sanadkan hami kasto leedihiin ilaahay haydin rumay aamiin ilaahay ninkii waxa weey wadankeenu ka baxa doonay ilaahay ha u fudeeyo aamiin ilaahay ninkii ganacsi ku haway ganacsigiisa ha u rumeeyo ilaahay waxa weey gabdhaheena ha inoo barakeeyo aamiin intaasay ku dhan tahay 2027 waxa weey balanta ay noqonaysaa hadii Allah awood leeyahay channelkaas haduu idinka soo arbaxo fadlan wixii la saari jiray saara like share comment subscribe kana saaro gambalal kana furo si fariimaha iyagu ay hadba had ku soo gaadhaan waa maasidii dhimaantii sanad waxaan wanaagsan soo dhawaad